بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال يقولون أمان مرحبا كردون عطينا اليومانية أمام الجامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كريم waxay mahad oo lagu sugnaaday ilaahay maamuuray ay noo suurtageliyeen aynu maanta isugu dhimaadno munaasabadda qiimaha badan ee xafladda qalinjabinta jaamacadda Camuud dafcaddii labaad waxaan halkan hambalyo iyo bogaadinba uga dirayaa ardayda nasiibka u yeeshay inay maanta ka qalinjabiyaan jaamacadda Camuud oo aan oran karo waa talaabo magac weyn deegaanada dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan halkan ka hambalyo uga dirayaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka jaamacadda oo maantii dadaal badan iyo tacab badan geliyey arday maanta halkan horfadhida ee ka qalinjabinaysa sidoo kale sanadka ku helay ama halkan ka sheegay gudoomiyaha jaamacaddu waxaa halkan maanta qalinjabinaya kun iyo dhowr iyo soddon arday oo isugu jira shahaadada koowaad iyo shahaadada labaad isla markaana ka qalinjabinaya 13 qaybood oo kala duwan iyo qaybta mustaqbalka u tira baatay oo markaan gudoomiyaha ka sheegay dhammaan weeyaba mudanayaal iyo marweyn waxay ka wada dhegsanahay maanta inta haatan markeeda ay dhibaato ka jirto laakiin munaasabadda qalinjabinta ee muhiimad iyo mudnaan gaar oo ardayda maanta halkan joogta iyo waalidiinta awgeed waxaan rabaa inaan ku koobnaado muhiimadda ay u leedahay aqoonta bulshada mawduuca ka hadlayo ee jecelahay inaan maanta halka hadlo waxa weeye aqoontu waxay u baahan tahay in lagu dabaqo qaab nololeedka bulshada mudanayaal iyo marweyn aqoontu waa iftiin waa nolosha aqoontu waa waxay bishaa sharafta iyo karaamada qofka waxbartay waxayna kordhisaa hodantinimada qaabka noloshiisa qofka ujeeddada ugu dambaysa ayaan leeyahay barashada aqoontu waa kordhinta iyo kor u qaadista garaadka aragtida dabciga qaabka fikirka oo kaga duwan yahay qofka u bahay qofka aqoontu waxay qofka bartay siisaa fikir farsamo iyo xirfad uu ku adeegto bulshadiisana uu adeego taasoo uu kaga maarmi karo inuu dowlad ama cid kale u daba fadhiisto horumarkiisa iyo higsigiisa nololeed sidoo kale aqoontu waxay kordhisaa isu kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada qofka aqoontu waxay qofka ka badbaadisaa in fikirkiisa iyo maskaxdiisa la amaahdo ama oo cid kale u rahmanaato sidii aaladaha oo kale kolba meel la rabo loo jiito mudanayaal iyo marweyn qofka aqoonta bartay rag iyo dumarba waa kii kala saara sax iyo qalad ka garaaba wixii xaqa la dagaalama xaqdarrada damiirkiisu diido xumaha iyo dulmiga aqoonyahanku waa kii diida xumaanta ee uu damiirkiisu ka xishoodo wixii nabigiisa iyo ka bulshadiisa lagu soo jeeday haddaba ardayda maanta qalinjabisay waxaan jecelahay inaan isweydiiyo in aqoonta aad barateen ay u baahan tahay inaad ku dabaqdaan oo aad ku salaysaan qaab nololeedka bulshadiina iyo sidii looga bixi lahaa caqabadaha kala duwan ee ummadda Soomaaliya maanta hor yaalla
سيادة رادي وحنا معنا إن دا يقصوا مالا مسيب كوهري أنا يبرتان عقال أي فهمان ودوي كلام مرة يرشد أي كسر جيران لو عقال أي برتان قصة هي قانونات يرشد نقلك يدينتا سلاس أوكيليا أي أقويانك يرشد يسكفها بكران أو يسكفها كان ugu dambayntii dalkeenu wuxuu ku jira xaalad adag sidaa daraaddeed dhammaanteed bulshada Somaliland gaar ahaan bulshada maanta laga hadlayo reer awdal gudaha iyo dibaddaba waxa adag si adag ugu dambaaraya inay ilaashadaan nabadgelyadooda wadajirkooda iyo qarannimadooda meel uga soo wadajeestaan wax kasta oo khatar ku ah baraarujinta jiritaan gobolka Somaliland gaar ahaan dadka daayarta ah waxay ku baraarujinayaan inaan la idinka horkeenin dadka ayna isku dal iyo dad iyo diiban ee reer Somaliland ee isku anduufnahay waxaa kaloo si weyn uga taxadirtaan aafada laga wado baraha bulshada ee bulshadeena la iska horkeenayo Soomaalida ku maamaadaan nimanan kuu furay inuu kugu raay nimanan kuu furay inuu kugu raay intaa wax ku day ogaa kaftalo halkani wax lagu horreeyo intii ka hadlay wasiirka awlaad wiyaa tiriyey maxaad maraysaa tirintaas soo ninkii reesanaan bariya inuu yaa tiriyo in badan iskada joognay isku dayaan hayni garanayn magaca faado maanta tiriyaa wogey waxaa ugu wacan ninka waa nin reer boora u ahaa aabihii markaa dugsiga dhaxahayo talihiisa ninka boora u ahaa odaalana haystee shaab fuutana oo markay ayadu boora ku baato qoliga sidaa ugu qaada ama aybulu dhulka woliga saa darteed boora ku barbaanay oo wax baa naga dhexeeya weyaan dowladda Saleemaan oo ka sheekeeyay taariikhda ay soo martay waxaan ku maasay yahay waqti adag baxay inta ay ku dardaarayaan dadku waxa la yiraahdo wanaagsan ma iska day ardayda waxa laga rabaa aqoontu ee la socoto waxay gaalada aktifiisa noqotaa firfircooni iyo hal abuurnimo ka timaada taasoo nolosha wax badan aad ka gudbayso jaamacadda ma intii la asaasiyay fikirka la keenay dhaqan Somaliland iyo laba jilaato ilaa imika inaga hadla dadku waxay eegaan waxa la wado ma eegaan inta wada eegta waxay yaasiin leeyahay hadduu waxaasi dadka jaamacadda waxa uu wada qoran noqdo oo waxa arrinteeda sida hala taajiro laga foojinaa waxa wanaagsan oo aqoon marweeyo sida kula arwada mataan laga siiyo aqoon jaamacad maanta dugsi sare ka baxay shaqo hor ka gaaro jaamacad markaa miisaanka ay leedahay iyo sawir mid mooyaane waqtiga kale oo ay ka waxaan ma jirin laakiin se wixii la wada waxaa kale wax wanaagsan yahay oo waqtaan horan ka raacay haddana horan ka raacay قارن كده هي كوما كهلا كده يحترم بيا في احترامها وهو رسالة قمتان يقول كده إله بكسيا شمع شديه بعد على كهلا قدراس كده وش يقولنا يقول كان حسنا شمع شديه بعد وهذا الشيء تاسي أفضل ما توصل فاي إنه كسرهم إيرانو كتاس أو بدي أيه إذا كريدا وشوف العطاء هذه عروضية وصلت فيها أولو بديهين فيها أولو PhD بيهين متعلمين بيوية بوك استوى تعطوية أكتفيس معها ومرة ويكحرم يقول كل سيئة روتي سبيلية لو ما تصل قفوا ربعينه برشلة واختراء وكمان كم موضوع حديث صرفنا ولا صرفنا راعو حديث سياسة ولا سياسة راعو noloshana ka cabsoonida noloshana in laga cabsado ma haweenka qofku dhiiraa saadafay waxa lagu boorinayaa qoladii hore wada ka mid ahaa
boqolkiiba 90 ku ekeyd waxbarashadooda isaga aruus ku ekeyd xanuunqolina boqolkiiba 90 agtiisa loo waxyaabo oo waliba aqoonyahanka hor jooga iyo kuwa kale ee maqneen. Salaamu calaykum.